maxaad ka taqaanaa kooxda hogaamisa siyaasadda arimaha dibadda ee Maraykanka ee ku aadan Bariga dhexe maxayse tahay kooxdani waxaan ku eegaynaa Videogan. I'm proud to say today America's support for Israel's security is at a record level. America able to block efforts to isolate or attack Israel. The alternative is unthinkable. And as president, I will never compromise when it comes to Israel's security. Dalka Maraykanku waa dalka keliya ee loolan doorasho lagu galo qabka iyo badbaadinta dal shisheeye. Sidee wuxuu jiraan Aduunyada kama jiro dal ay musharaxiintu yiraahdaan dal hebel qabkiisu iyo jiritaankiisu waa muqaddas. Dad ayaa jira aaminsan in yuhuudda Maraykanka ku nool ay xukunto siyaasadda arimaha dibadda ee Maraykanka. Arrintaasi sax ma wadahan. qaar waa jiraan qaar codkooda iyo dhaqaale waa ku bixiya laakiin waa lambar aad u hooseeya marka loo eego tirada guud ee dadka Maraykanka ku nool oo ah 330 milyan halka yuhuudda Maraykanka ku nool ay tahay 7 milyan oo keliya. hase yeeshee haddaan taariikhda dib ugu noqono bartamihii qarnigii 18aad ilaa qarnigii 19aad waxaa dalalka reer galbeedka aad ugu fiday koox diimeed loogu yeero evangelical Christians. kooxdan oo ka mid ah firqooyinka aadka u badan ee ka kooban tahay diinta Kiristaanka. firqadan ayaa hoggaanka u qabatay siyaasadda arimaha dibadda ee ku aadan Bariga dhexe. haddaba kooxdani maxay aaminsan tahay? God gave them that land. They own that land. Go to the phone right now and call that number and say, yes, I'm going to stand with Israel. I'm going to bless the people of the Bible. I'm going to bless God's chosen. sidii aan soo xusay waa koox ka mid ah firqooyinka faraha badan ee ka kooban tahay diinta Masiixiga. waana koox mayal adag ama xag jira hadda saad u taqaan. waxay aaminsan yihiin Bible-ka inaan buu ka sarreyn isagana loo noqon doono aakhirataanka. waxay sidoo kale aaminsan yihiin in dadka yuhuudda ah la isugu geeyo Israa'iil. dowladda Israa'iilna maal iyo muruqba lagu bixiyo la'aanteedna aanu soo noqonayn Nabi Ciise. nabadgelyo iyo naxariisi korkiisa ha ahaatee. arrinta ugu naxdinta badan ayaa ah jacayl ay u qabaan yuhuudda uma taageerayaan laakiin waxay aaminsan yihiin in yuhuudda la isugu geeyo Israa'iil kadibna markuu Nabi Ciise soo noqdo oo halkaa ku gowrgowrici doono diidmadii ay diideen. kooxdani waxay sidoo kale dhaqaalaha ugu badan ku bixisaa deegaamaynta dhulka laga qabsado Falastiiniyiinta. waxaa xusid mudan markii Israa'iil ka soo baxday magaalada Qasa inay ku sheegeen in arrintaasi ay ka dhalanayso cadho Ilaahay. sidoo kale qoraal lagu daabacay wakaaladda Foreign Affairs ayaa lagu sheegay inay dowladda Maraykanka ku cadaadiyeen kala jaridii Suudaan oo ay aaminsanaayeen in dowladda Khartoum ay cadaadinayso Kirishtankii deganaa dhinaca kale oo ay ku soo rogayso islaamayn. dadka ugu badan ee ka tirsan kooxdan waa dad cadaan ah waana kooxda keliya ee Maraykanka ee ku bixisay codkooda iyo dhaqaalahooda mabaadi diimeed. marka dhinaca laga eego dowladda Maraykanku waxay ku jirtaa dagaal diimeed ay koox yari madaxa u geliyeen oo ay meel uga baxdo la'ahay.